madaxweynuhu isagoo madaxweynahayna adeer buu ah isagoo madaxweynahana adeer buu bari markuu ka degana adeeruun buu ahaanaya laba xaq inuu madaxweynuhu igu leeyahay aaminsan anu Cabdiraxmaan ahaan marka si saraxata umada walaal way kelmadaas way igu soo noqnoqotay Axmedow inaan mar iska reeban doonay Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo kamid ah shuyuukhda waaweyn ee reer Soomaaliland isla markaana waraysi gaara siinay telefishinka Sahan ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay waraysi dhawaan la sheegay in uu siiyay warbaahinta Soomaaliland mid kamid ah isaga oo arrimaha waraysigaas ka hadlayana waxa uu yiri waxay la soo xiriiray nin yaro anoo aan magaciisa Maxamed Ducaale oo aqaan ninka waxaan ku aqaanay meesha meel la yiraahdo Al Jazeera Somali News marka page ayuu maamuli jiray rabadaanada qaar kood buu yimid oo kalimaad wacdiga duubay marka aniga runtii khayrka aan isku baranay anagu ayuu ahaa wuxuu soo celay dhowr jeer sheekh waxaan doonayaa inaad ka hadasho sanadka cusub in la soo hambaliyay miilaadiga xukunka shariicadu ka qabto iyo dhaqan xumida TikTok ka socota saasha hadaad weydiiso kulligteed markaasaan ku noo sanadka cusub anigu waxaan kaga hadlay khudbad jimce culimadana way ka hadashay uma baahni TikTok laftiisana waxaan daawaday baan sheekh umalo si waxaan uga hadlay uu igu celceliyay anigoo safar ah oo qaadi karla ayaan ka yeelay inaan kelmad waxaan isiri wadniyo armay xujo kugu noqotayo wanaag dadkii u sheeg lagu leeyahay oo aad diiday bil ilaahay dadku aan ficilaa xaga anigoo ka eegaya ilaahayna subhanahu wa ta'ala sida uu caalimul qeybku ugu og yahay ayaan u imid inanka markii aan u imid waxa harta markiiba uu yiri sheekh hodhac yar baan u sameynaa waxa uu sameyn baan ku wariyay su'aashu intuu sii weydiin deetana wuxuu ku bilaabay Cabdiraxmaan Maxamed Cali baa noogu martay barnaamijka la hadal horyaal waxaan hoos u yiri ma garanay la soo deyn doonay kale anu horyaal lama hadli dadkan la hadlay ma ku because anu barnaamij meesha uma niman moogtahay wacdi baan u imid deetana Cabdiraxmaan waa kuma taariikheedii ano aad u dhibsanaya ilaahayna sida uu igu og yahay waxaan ku wari inaad weydiiso maahin maxaan sheegaa waan ku wari anu magacaygu Cabdiraxmaan Maxamed Cali Hargeysa ku dhashay aan maartay ku barbaaray wax ku bartay jooga taasana in dadka wacdiyana aan ahay Allah ugu yaqaan warashadeeda waxba markaa loo baahan waa aad baan u karaasani inanka su'aal buu weydiiyaa waxaad ka hadashay jaray waxyaalaha waaqaca ka taagan waxaad ka hadasho ma ka hadashay TikTok markaas su'aashaas aan u fahmay in marka halkii aanu doonayno isugu soo dhacay si waafi aan uga hadlay marka hadda halkan waxaan soo koobay si waafi aan uga hadlay markii aan dhameeyay le waa barnaamijkii aan u imid kacban isaan marka walaga dadku marada in arkaan oo si kacay kacban isirida banda su'aal kale ugu xigsi wuxuu ugu yiri ma aragtay maxaad uga hadli wada barwaaqo waxaan ku su'aasha meesha uma inaan iman marka sida leeyahay ma aha nin waraysi ka baqayanahay haddaan waraysi doonayo intaasoo tiifeelo soo waan siin karaa siyaasi ma ihi oo qof siyaasadda deel maartay siyaasi oo xaaladaha jira laga waraysto ma ihi member baan saaranay waxa la weydiiyo mas'ala diiniya ama shay maartay bulshada dhibaato ku ah sida sharcigu u arko la weydiiyo wax diin ku lug lehum aniga la weydiin kara waayo waxaan kala dee ehelna uma ihi inaan ka hadlana ma jecliba marka waxaan ku su'aasha meesha uma inaan iman hase yeeshee maali qofku wuxuu macluumaad ka hayo buu ka hadlaa ibn aadamkana macluumaadkiisu waa koobay wuxuu macluumaad ka heli karaa marka macluumaad xaan ka dhulkii la isku haystay dacwadi maxaad uga hadli wadan ay weydiin waxaan ku wari aanu qaadimay saasan oranaya su'aalaha hay weydiinay ka jooji inta inoo gudaa dhowr jeer baan ku celi bulshada wax laga yaabaa inay sawir qaldan qaataan ama isagu doonay inuu sawir qaldan dadka u geliyo in aan ka cararay maaragtay waraysi leeyla yeelanay oo diiday haddii waraysi leeyla yeelanay oo ahaa ilaahayna uu ogay inaan wahaynana waan ogeysna uu ogay de waan soo doonto anaaba cagay ku soo doontay inaan ka jawaabo waxba afkaaga oo ku xidho ku furaya la gooba la yiraahday waan ka jawaabi lahaa sheekh mar la weydiiyay su'aal ahayd xilka uu xukuumadda ka hayo iyo magacaabistii madaxweynuhu uu magacaabay guddiga dhinaca wasaaradda diinta iyo qaafta ee arrimaha caymiska Soomaaliland ama guddiga caymiska iyo xilkaasi halka uu ku dambeeyay waxa uu yiri xilka anigu horta xubin wasaaradda qaafta ka socoto oo loogu talagalay shariicada inay ilaaliso guddida madaxweynuhu warqad ku soo wada saaray guddi meelo badan ka kala imanaysa ay ahayd anigu xubin wasaaradda qaafta sheekha Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Ali Albani ilaahay xifdiyo wasiirka ii gartay oo alkaygii markii aan arkay dadku inay si qaldan u turjumeena waan ka cudur daartay wasiirkii magacaabay un baan cudur daarkii u sheegay oo reeri nin kale culimo oo aan aaminsan inay gaba wanaagsanayba ayaa shaqada haya Sheekh Cabdiraxmaan oo su'aal laga weydiiyay xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo halka uu gaarsiisan yahay waxa uu ku jawaabay madaxweynuhu isagoo madaxweynahayna adeer buu ah isagoo madaxweynahana adeer buu bari markuu ka degana adeeruun buu ahaanaya laba xaq inuu madaxweynuhu igu leeyahay aaminsan anu Cabdiraxmaan ahaan marka si saraxata umada walaal way kelmadaas way igu soo noqnoqotay Axmedow inaan mar iska reeban doonay xaq ummadoo dhib ku leeyahay adiga iyo nimadayna daawanay dadka kale Soomaaliland dhib ku leeyahay xaq madaxweynimada
in la adeeco wixii wanaaga lagu adeeco wixii qalad looga nasteexay la barbiista waa xaq ilaahay ummadda uu ugu dhiibo ummadda uu ku leeyahay isagu ilaahay baana siiyay shariicadana siisay xaq gaar ah aniga igu leeyo kii waalidnimada xaqa madaxweynenimadu waa muddo time leh laakiin waalidku hadduu dhintay hadduu nooleeyo xaq buu leeyahay وانا قرا إلهي بان يلي وجعلناكم نسبا وصيرا أنك waxaan idinka dhignay tol iyo xididba qaraabada Ilaahay baa qofka dee u doora markaanu laba xaq nin lagu loo labadii xaq bay inuu gudo madaxweynihiisa ay waajib diiniga ku tahay midna kii qaraabanimada tay diin waajib ku tahay soo halka banaanka fadhiyana gudo waalidkii uu yahay midna dee ka umada buu ku leeyahay tahay inta waxa aan ahayn oo umada kale aan dee kislada ka doonti ma jirto kaligeena kuma yeedee baa umadu way badan tahay sheekh cabdiraxmaan maxamed cali ayaa warbaahinta Soomaaliland qaarkeed waxa uu soo jeediyay in ay marka ay dadka ka doonayeen waraysiga ka qaadaan waraysi qofka uu raali ka yahay isla markaana waxyaabaha aan qofka oran aanay ka dabageynin bulshada waxaan u sheegayaa kuwa warbaahin ka shaqeeya kuwa aan ka shaqeyn kuwa ganacsatada kuwa aan haynba kow amaanada qofka inuu ku dadaalo amaanadu waxyaalaha dhaawaca maanta badan gaari bay ka mid tahay bulshada dhexdeeda oo taamaanta aan dee aad weydiisay dadku ay weydiinayaan waxa halkaa isoo garaacay markaan qiyaasan iska ilaaliyo dembiga dad 50 qof ka badan nin waliba wuxuu weydiiyey maxaa kuu geeyay TV-ga waraysigiisa qof ladaas maxaa kuu geeyay macnaha markaa waxaa bulshada inay nool yihiin oo dad damiirkoodu nool yahay oo aanay ogolayn dadka culimada ee astaanta diimada in la dhaawaco markaa bulshada deewaaniga u cadeeyo horta waraysana muhiim sababta ku timid waxaan leeyahay markaa amaanada la ilaaliyo waa talabaad qofku adduunyada intuu joogaa waa muddo kooban dad badan oo caafimaad ku seexday oo in hebel u garanano oo iyagoo miida soo toosa jira ma garan karna xilliga nafteenu ay baxayso marka qofku ilaahay agtiisa inuu wax wanaagsan geysto oo raasamaalka bangiga aakhiro wax wanaagsan sii dhigto ayaa nafteedana ku waaninaya walaalaha muslimiinta oo dhanna aan ku waaninaya Axmed Cabdiraxmaan Xirsi Sahan TV Hargeysa